beesha degta deegaanada Geedihaan Balambaal Nasiye Dhoqoshay Dindinta iyo Booramo ee gobolka Togdheer oo shir ballaaran ku qabtay hotel Kaafiya magaalada Burco ayaa xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay waxqabad la'aan deegaanadooda ogolaanshaha deegaamayn cusub oo laga samaynayo dhul hore loogu diiday deegaamayntiisa tigreetooyinka saddex madaxweyne oo soo maray Soomaaliland xukunno iyo xariga qaar kamida hogaamiyaasha dhaqanka beeshaasi oo ay ku tilmaameen waxgaradkii ka hadlay kulan wareedkaasi kuwa cadaalada ka fog waxaanay ku dhawaaqeen inay ka baxeen gabi ahaanba xisbiga talada Soomaaliland haye kulmiye shirar badan oo hore oo beesha hore ay u gashay oo muddo soo socday beelweynta Bilin Ahmed markay dib u eegtay xisbiga kulmiye iyo xukuumadda xisbiga kulmiye ay aad iyo aad uga fiirsatay waxay ka tirsatay waxyeelooyin aad iyo aad u badan cadaalad darro iyo wax qabad la'aan iyo waliba inay waxyeelaysay oo ay muran iyo nabdi gelisay deegaamadii reerku deganaa inay maxay ahaydey munaafaqad iyo nabadgelyo xumo ay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ay dhex dhigeen reerihii ay walaalo ahaayeen ee daris walaagta ahaayeen ilaa 19 waxyeelo ayaanu ka tirsanay meesha maanta hadlayso odayadeedii baan nahay waxaanu halka ka sheegay inaanu kulmiye ka baxno kala noqonay kalsoonidayadii burco kiiska joogay ee ka dhacay in Hargeysa loo rara waa xaqdare xaq ma hadde ama dhaliga karka kulayl baa ka keenay dhibaatada ka soo gaadhay dawladda aawadeed isugu timid waxaan dawladda uga tacsiyeynaya garabka ay ka weynay beesha iyadoo oo leh sababta odayaashii bilbageydada ahaa oo qaarkood jeelasha ku dhinteen waxaan u malaynayaa inaanay fikirkan dawladdu u dhammayn dad aan dawladda u danaynayn xusbiga kulmiye aan u danaynayn dhibaatadan sababeen way ku galaafatay baan leeyahay ama xusbiga gool noqo ama dawladda noqo aanu ahayn tiirka lixaadka ee kulmiye maanta waxaanu go'aansanay annagoo aqoon-yahanadayada haweenkayaga dhallinyaradayada bulshadayada u dhan inaanu ka baxno xisbiga kulmiye cadaalad darrada maxay tahay lagu hayo ay ku xidhan yihiin inay annagoo ka mutiga rabanay xisbiga kulmiye meesha mutiga rabana annaga ayaa soo sheegayna odayaashii ugu sharafta badnaa uqaashi waxay ku xidheen saldhiga cadaalad darro ayaa lagu haystaa ay ku xidheen kiiskii halkan ka dhacay Burco Hargeysa loo xawilay waxay ahayd meel walba wixii ka dhacay lagu xukumo soolida laga noqday hal reer hadan ku daro konton ku oo cod oo loo balan qaaday gudoomiyaha xisbiga xaadinka Musabbixi gabiyaana ku tashanaya mooyaane cid korto ugu xidhin xor ayaga ku tashanay waxa su keentay dhibaato soo gaadhay horumar la'aan abashada soo jirta waa markii uu horeysay intii lagu jiray bisha barakaysan ee Ramadaan mid kamid ah beelaha degan gobolka Togdheer ay ku dhawaaqday inay ka baxaan xisbiga kulmiye علي داير محمد بوس TV Universal Burco.